Dhunkashadu waa hab dabiici ah oo muhiim u ah xiriirka jinsiyeedka iyo isku xidhnaanta dareenka ee labada qof ee isqaba. Waa fal isdhaafsiga dareemayaal ay ku jiraan kicin iyo baraarujin kaasoo ku dhisan taabashada, urta iyo dhadhanka. Dhunkashadu waa mid ka mid ah hababka ugu muhiimsan ee kicinta rabitaanka jinsiyeed, waxaana jira 3 shay oo saldhig u ah habkani: dhuuqmada, urta iyo dhadhanka. Dhunkashadu marka ay dhacdo, jirka haweeneyda waxa uu ku lismayaa jirka ninkeeda, waxaana jira kicin heer sare ah oo ka dhasha isdhexgalka jirka iyo dareemaha. Dhiigga ayaa dhaqaaqa, dareemayaasha jirka ayaa firfircoonaada, neefta labada qofna waxay isu dhex gashaa, taasoo abuurta dareen xooggan oo ay labada qof ka helaan macaan jireed iyo mid dareen ah. Waxyaabaha sida gaarka ah loogu baraarugsan yahay marka dhunkashadu dhacdo waxaa ka mid ah urta gaar ah ee qof walba leeyahay, taasoo xoojisa rabitaanka ama burburisa haddii urtu aysan soo jiidanayn qofka kale. Dhuuqmada afka, gaar ahaan bushimaha, waa hab ay labada qof isku macaan marinayaan. Afku waa mid ka mid ah meelaha ugu dareenka badan jirka aadanaha, waxaana uu leeyahay tiro badan oo dareemayaal ah oo si gaar ah u falceliya marka lagu dhuuqo si xoog ama tartiib leh. Marka ay bushimuhu isku lismayaan, waxaa abuurmaya dareen aan xad lahayn oo labada qof u oggolaanaya inay si qoto dheer isu baraarujiyaan. Urta ama udgoonka neefta iyo jirka qofka kale waxay door weyn ka ciyaartaa kicinta dareenka jinsiyeed. Labada qof marka ay isku dhowaadaan oo ay isku neefsadaan, dareenka urku waa mid soo baxaya, waxaana laga yaabaa inuu labadooda ka dhigo kuwa isjiita ama isku dida. Udgoonka dabiiciga ah ee qofka waxa uu kicin karaa dareenka jinsiyeed, halka ur aan fiicnayn uu ka keeno qabow iyo xiiso yari. Dhadhanka ay labada qof ka helaan dhuuqmada bushimaha waxa uu xoojiyaa kicinta iyo isku dheelitirka dareenka labada qof. Kolka ay labada qof afka isdhuuqayaan, gaar ahaan dhuuqmo joogto ah oo istiin badan leh, waxay soo afjartaa xaaladda difaaca jirka, iyagoo isku diyaarinaya kulan jireed oo qoto dheer. Dhuuqmada waxay leedahay qaabab kala duwan, kuwaasoo dhammaantood lagu gaaro kicin iyo baraarujin. Labada qof bushimahooda ayaa si aayar ah isugu daliga, waxaana mararka qaar bushimuhu si xoog yar ama xoog badan u taabanayaan. Markii bushimuhu kala qaadmaan, qofka kale ayaa si aayar ah u nuugaya bushinta kan kale, isaga oo macaan gaara dareemaya. Noocan dhuuqmada waa midka afka ninka uu si buuxda ugu toobaan afka xaaskiisa, isaga oo afka oo dhan geliya afkeeda, dabadeedna ay si wada jir ah ugu dhuuqaan. Carabka waxaa loo isticmaalaa in lagu salaaxo bushimaha iyo afka qofka kale, iyada oo la samaynayo dhaqdhaqaaqyo fudud oo carabka loo mariyo dhinacyada bushimaha, marna gudaha loogu riixo afka. Dhunkashadu waxa ay ku kala duwan tahay goobta jirka ee la dhunkado. Meelo kala duwan ayaa leh dareen gaar ah oo kicin kara labada qof. Indhaha, ragga qaarkood waxay door bidaan dhunkashada indhaha, taasoo keenta dareen xooggan oo ay ka helaan gacaladooda. Dhegaha iyo dacaladooda waxay leeyihiin dareen gaar ah, waxaana dhunkashada halkaasi ay keentaa istiin iyo raaxo. Luquntu waa meel kale oo aad u dareen badan. Dhunkashada luqunta, gaar ahaan hoosteeda, waxay dhalisaa dareen jinsiyeed aad u xooggan. Dhunkashada naasaha, gaar ahaan ibaha, waa mid si gaar ah loogu baraarujiyo dareenka haweeneyda, waxayna si xoog leh u kicisaa rabitaanka jinsiyeed. Dareemayaasha ku jira jirka, gaar ahaan kuwa ku dhow meelaha dareenka badan sida afka, luqunta iyo naasaha, waxay leeyihiin awood gaar ah oo ku saabsan baraarujinta rabitaanka jinsiyeed. Taabashada fudud ee bushimaha ama afka ayaa la gaari karaa heer sare oo kicinta ah, iyadoo dhiiggu uu dhaqso u wareegayo oo xubnaha muhiimka ahi ay bilaabayaan inay si dabiici ah u baraarugaan. Guud ahaan, dhunkashadu waa hab muhiim u ah isku xidhka jidheed iyo dareen ahaan ee labada qof, waxaana ay muhiim u tahay hagaajinta xiriirka jinsiyeed. Dhunkashadu waa hab dabiici ah oo dabiicadda aadanaha ku abuurtay si ay u kiciso una dhiirigeliso isku xidhnaanta dareen iyo jidheed ee labada qof. Marka la isku soo dhowaado oo la taabto, jirka waxa uu ku jiraa xaalad firfircoon oo uu bilaabayo inuu soo daayo hormoono muhiim ah oo si gaar ah u saameeya dareenka qofka. Hormoonadan waxaa ka mid ah oxytocin, oo loo yaqaano hormoonka jacaylka, iyo dopamine, kaas oo ah mid dhiirigeliya raaxada iyo farxadda. Dhunkashadu si gaar ah ayay u faa'iidaysanaysaa taabashada jidhka, taasoo kicinaya dareemayaasha ku yaal meelaha ugu nugul jirka sida afka, bushimaha, luqunta iyo xitaa xudunta. Meelahaasi oo lagu taabto xaaladda dareenka jinsiga ahi waa ay kacdaa, iyadoo natiijadeedu tahay baraarujin xooggan. Taabashada dhexdhexaadka ah ee laga dareemo meelahaasi waa mid qofka u keeni karta raaxo iyo deganaan, laakiin sidoo kale kicin xooggan oo ku wajahan galmo. Daraasadaha qaar ayaa tilmaamay in taabashada ninku uu taabto xaaskiisa, iyadoo aanu si toos ah u gelin galmo, ay sababto in haweeneydu ay dareento macaan iyo raaxo aan la barbar dhigi karin.
Waxaa la rumaysan yahay in taabashada iyo dhunkashadu ay si toos ah u saameeyaan maskaxda, gaar ahaan qaybaha xakameeya dareenka, iyagoo abuuraya xidhiidh jidheed oo qoto dheer oo labada qof dhexdooda ah. Neefta iyo urta dabiiciga ah ee qofka kale waa wax si gaar ah muhiim ugu ah xidhiidhka jinsiyeed. Waxaa jirta aragti cilmiyeysan oo sheegaysa in urta dabiiciga ah ee qofku ay kicin karto dareenka galmada, gaar ahaan marka uu qofku qabo xiiso jinsiyeed oo qofka kale u gaar ah. Feromoonnada, oo ah maadooyinka kiimikada dabiiciga ah ee jirka, ayaa door weyn ka ciyaara urta soo jiidashada jinsiyeed. Labada qof marka ay isku soo dhowaadaan oo ay isku neefsadaan, neeftooda iyo feromoonnadooda ayaa isdhexgala, iyagoo abuuraya dareen kalgacal iyo rabitaan dheeri ah. Tusaale ahaan, mararka qaarkood urta qofka ee ka dhalata qoyaanka maqaarkiisa, gaar ahaan inta uu yahay mid soo jiidasho leh, waxay u shaqaysaa sidii ilqaaciid dabiici ah oo kicinaysa dareenka. Haddaba, haweenaydu marka ay uriso ninkeeda oo udgoonkiisa soo jiidasho leh uu yahay, waxaa suurtagal ah in ay dareento xiiso jinsiyeed oo xoog badan, taasoo uu isku raaciyey dhiirigelinta maskaxeed iyo dareemayaasha. Dhadhanka waxaa sidoo kale loo tixgeliyaa inuu yahay qayb muhiim ah oo ka mid ah isku xidhka dareenka ee labada qof. Dhuuqmada bushimaha iyo carabka waa mid gaar ah oo labada qof ka heli karaan raaxo iyo kicin jidheed. Labada qof ee isku dhuuqaya waxay dareemaan istiin iyo macaan jireed oo dhinaca dhuuqmada uga yimaada. Marka carabku gudaha ugu dhaco afka qofka kale, waxaa jira dareemayaal firfircoon oo keena kicin heer sare ah, gaar ahaan marka la isdhexgeliyo gudaha afka oo carabku si tartiib ah u wada shukaansado gudaha afka kale. Dareemayaasha ku jira carabka iyo gudaha afku waxay aad uga dareen badan yihiin kuwa kale ee jidhka, taasoo ka dhigaysa dhuuqmada afku inay si weyn ugu kiciso labada qof dareenkooda jinsiyeed. Waxyaabaha ugu xiisaha badan ee dhuuqmada afku leedahay waa in labada qof ay si isku mid ah u dareemaan macaanka dhuuqmada, taasoo keenta inay si qoto dheer u dhexgalaan isku xidhiidhkooda dareen iyo jidheed. Marka laga soo gudbo dhuuqmada afka iyo bushimaha, waxaa jira dhunkashooyin kale oo muhiim u ah kicinta dareenka jinsiyeed. Meelaha kala duwan ee jirka, gaar ahaan kuwa sida aadka ah u dareenka badan sida luqunta, shafka, iyo naasaha, waa meelaha loo dhunkado si loo xoojiyo raaxada iyo kicinta. Dhunkashada luqunta. Luquntu waa meel gaar ah oo dareenka kiciya, waxaana la sheegay in marka luqunta la taabto ama la dhunkado, dareenka jinsiyeed ee haweenaydu uu si degdeg ah u kaco. Taas waxaa laga yaabaa inay sababto dareemo jirkeedu inuu sidii koronto fudud ku soo maray dareemo. Dhunkashada shafka iyo naasaha. Naasuhu, gaar ahaan ibaha, waa meelaha ugu dareenka badan jirka haweenayda. Dhunkashada ibaha waxa ay abuuri kartaa dareen xooggan oo labada qof ku dhex mara. Dareenka ibaha waa mid xiriir dhow la leh kicinta rabitaanka jinsiyeed, waxaana dhunkashada ama taabashada meeshaasi ay kicin kartaa dareenka galmada si qoto dheer. Dhunkashadu ma aha oo keliya hab dareen iyo raaxo keena, balse sidoo kale waxay leedahay faa'iidooyin caafimaad oo faro badan. Hoos u dhigidda walbahaarka. Dhunkashadu waxay ka caawisaa labada qof inay sii daayaan hormoonka oxytocin, kaas oo caawiya in walbahaarka iyo welwelka si dabiici ah loo yareeyo. Marka labada qof si qoto dheer isu dhunkadaan, waxay dareemaan deganaan iyo raaxo, taas oo si toos ah hoos ugu dhigta heerarka walbahaarka. Kor u qaadidda caafimaadka wadnaha. Dhunkashada joogtada ah waxay keentaa in dhiiggu uu si wanaagsan u wareego, taasoo ka hortagaysa xanuunada la xidhiidha wadnaha iyo xididada dhiigga. Waxaa la ogaaday in dhunkashada iyo xiriirka jinsiyeed ee caafimaad qaba ay yareeyaan khatarta cudurrada wadnaha. Xoojinta xidhiidhka labada qof. Dhunkashadu waxay leedahay awood xoog leh oo labada qof isku xidha jidheed iyo dareen ahaanba. Waxaa la sheegay in dadka si joogto ah isu dhunkada ay leeyihiin xidhiidh wanaagsan oo qoto dheer, iyagoo dareema isku xirnaan iyo jacayl dheeri ah. Kor u qaadidda difaaca jirka. Dhunkashadu waxay kordhisaa soo saarista antiboodiyo dabiici ah oo ka hortaga cudurrada, taas oo si gaar ah faa'iido ugu leh caafimaadka guud ee jirka. Dhunkashadu waa hab ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee dabiiciga ah ee jidhka iyo maskaxda aadanaha siiyey isku xidhnaanta iyo raaxada jinsiyeed. Waa hab kicinaya dareemayaal dhowr ah oo ku jira jidhka, waxaana la helaa dareemo qoto dheer oo ah kalgacal, raaxo, iyo isku xidhnida labada qof. Marka la isku soo koobo, dhunkashadu waa hab muhiim ah oo xiriirka lamaanaha uu ku barwaaqoobo, laguna abuuro xidhiidh joogto ah oo raaxo leh.